nin ayaa dayactirayay saxan satelliit ah. Si lama filaan ah ayuu u sii daayay gacanta wuxuuna ku sigtay inuu dhulka ku isla daqiiqadaas waxaa badbaadiyey eey weyn oo cas. Qof walba wuu yaabay sababtoo ah weligood ma aysan arag eey sidaas u weyn. Labadooduba way naxeen laakiin sidoo kale aad bay u farxeen. Laakiin su'aashu waxay ahayd sidee ayuu eeygaasi u noqday mid sidaas u weyn? Maalmo yar ka hor eeygan wuxuu ahaa ilmo yar oo dhowaan dhashay isagoo la ciyaarayay walaalihiis ciyaarta qarsashada. Si kedis ah koox dad ah ayaa gurigooda soo galay waxay qabsadeen qoyska eeyga waxayna ku rideen qafasyo kadibna way kaxaysteen. Nasiib wanaag eeyga yaraa lama qaban. Markuu soo noqday wuxuu arkay in qoyskiisii dhammaantood la waayey. Wuxuu si walwal leh u baxay si uu u raadiyo. Nasiib darro eeyga yar ma uusan ogeyn khataraha magaalada. Wuxuu dhex galay waddada wuxuuna ku sigtay in gaari. Ugu dambayn si nasiib ah ayuu u gaaray beer bark ay ku jireen xayawaano yaryar badan. Halkaas ayuu kula tartamay qoolleyda. Markaas ayaa nin waayeel ah oo naxariis leh arkay wuxuuna u qaaday xarun lagu badbaadiyo xayawaan. Xaruntaas waxaa ku noolaa xayawaano dhif ah oo kale. Kadib gabar ayaa timid xaruntaas waxayna isla markiiba jeclaatay eeyga yar ee casaanka ah. Laakiin aabbaheed wuu diiday inay korsato sidaas darteed iyada oo murugo leh ayay ku celisay. Habeenkii markii ay gabadhu qolkeeda gashay waxay maqashay dhawaaqyo yaab leh oo ka imaanaya boorsadeeda. Markii ay furtay waxay ka heshay eeygii yar oo gudaha ku jira. Aad bay u faraxday. Iyadu ma aysan ogeyn in eeygaasi sixir leeyahay. Way wada ciyaareen kadibna way seexdeen. Markii gabadhu subaxdii toostay waxay aragtay in eeygii noqday mid u weyn sida maroodi. Markii hore waxay mooday inay riyo ku jirto. Degdeg ayay u toosisay aabbaheed. Labadooduba way yaabeen markii ay arkeen eeyga. Ugu dambayn qoyska ayaa aqbalay eeyga waxayna u kaxeeyeen baarkaga si uu u ciyaaro laakiin aad buu u weynaa. Dad badan ayaa ku soo xoomay sawirro ayaana lagu faafiyey internetka. Arrintaasi waxay soo jiidatay dareenka shirkad biotechnology ah kuwaas oo baara xayawaanada cajiibka ah. Laakiin ujeedadoodu ma ahayn inay badbaadiyaan eeyga ee waxay rabeen inay ka faa'iidaystaan lacag ahaan. Waxay bilaabeen inay isku dayaan inay eeyga ka qaadaan gabadha.